kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ogaanay boondadii oo baale la dhahay oo ku tiila agaarka degmada Mahada ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ayaa hore la duqeeyay inay wili u shaqeyso kooxda Al-Shabaab laakiin sida ku shaqeyso warar kala duwan ka soo baxay oo laba nooc ah qolo kamid ah mas'uuliyiinta ammaanka oo aan la xiriirnay iyo dadka deegaanka waxay leeyihiin boondada gaari ma mari karo laakiin dadku si caadi ah u maraan sidaas darteed kooxda Al-Shabaab waxay sameeysaa in webiga dhinaciisa kale inay gawaari ku keenaan maleeshiyaadka u dagaalamayo kadibna ay boondada lug uga soo gudbaan dabadeedna gawaari kale oo lagu diyaariyay dhinacan kale oo webiga dhinaciisa kale ah in looga soo qaado maalintii shal ahayd waxaan xaqiijinay dhowr gaari oo hoomey ah oo dagaalamayaal Al-Shabaab wada inay dhinaca boondada dad ka soo qaadeen oo dagaalamayaal ah kadibna ay geeyeen deegaanka lagu magacaabo laba garas qolo kale oo dadka deegaanka ah ama mas'uuliyiinta amniga ah waxay leeyihiin boondada burbur xoog lama gaarin oo hareeraheeda ayuu ku dhacay qaybo kamid ah burburay laakiin wali waxa banaan goob oo gaari mari karo sidaas darteed ayaa baabuur uga soo gudubtay Al-Shabaab labaasi sheeko ama dhacdo ayaa jirto laakiin waxa xaqiiqo ah isugu soo aruuraysa ama labada dhinac baabuur dadka ku keenaan oo hawa qaadaan inay boondada u shaqeynayso luka looga gudbo ama gaadiidka ku soo gudbaan boondadii inay shaqeynayso ay wararka ugu badan tilmaamayaan inta boondaas ay shaqeynaysana waa dhibaato hor la oo taagan oo u baahan in laga jawaabo maadaama kooxdu ay wali haysato dhaqdhaqaaq ay maleeshiyaad badan uga imaan karaan goobo kala duwan oo dalka Soomaaliya ah ayaa hore markii duqeyntaas ay dhacday waxa lagu guuleystay kooxdu inay gasho xaalad go'doon ah toddobaad ayaana waxa saarnaa culeys badan waxa dhici karto oo wararka qaar ba tilmaamayaan in burbur xoog leh uu san gaarin laakiin muddada toddobaadka ah oo hadda hakadku ay ku jireen oo halkaas aysan isticmaalin maadaama dad meesha jooga ay ka soo waramayaan inay dib u dayactireen ama ay dib u dhiseen way dhici kartaa ayadan waxa looga baahan yahay hay'adaha ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya inay baaraan boondadaas inay nimanku u shaqeyso oo gaadiid ay soo marsiyaan ama inay dagaalamayaashooda ay labada dhinac gaadiid inta ku keenaan uga gudbiyaan markii boondada lug ay ku soo maraan hore ayaa sidaan oo kale duqeymo loogu geystay meelo muhiim u ah kooxda oo ay ka mid tahay deegaanka Damashabeelo la yiraahdo oo keed u ahaa oo ciidan iyo sidoo kale u ahaa keed gaadiidku ay dhigtaan maadaama dhulkeena uu yahay rasaasna u tiilay halkaasina duqeymo xoog leh oo ka dhacay ayaa lagu baabiyay gaadiidkooda iyo ayagiiba boondadaana waa laga nastay markii la riday ama la duqeeyay waxaan rajaynaynaa mar kale in baaris lagu sameyn doono hay'adaha ammaanka ay ka jawaabi doonaan aad u mahadsantiin Ramadaan wanaagsan baaqa baraaruga dhalinyarada ee guul qaran shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan geesiyaasha ciidanka xoogga dalka iyo xoogga dadweynaha ee Macawisley waxaan u rajaynaynaa Ramadaan wanaagsan nimcada iyo khayraadka bisha barakeysan Ilaahay hana wada waafajiyo hana naga ajar siiyo oo hanagu guuleeyo howlaha fadliga badan ee aan hayno ay ugu weyn tahay jihaadka dalka looga sifeynayo khawaarijka arxanka daran anagu ku hadlayno afka dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu matalayo halganka ka dhanka ah khawaarijta waxaan isku raacsanaanay in guul kasta oo cadawga laga soo hoyo ay tahay guul qaran guushaas xaqiijinteeda in laga wada qayb noqdo oo hanashadeeda la isugu hiiliyo waa waajib qaran muwaadin walba hadii uu qaybta uu ka aadan ka qaato waxa hubaal ah in wadajir looga nacfin doono barwaaqada iyo baraaraha ay bulshadeena xaq u lahayd balse ay cadawga khawaarijtu ka xarimeen sanadihii badnaa ee ay dalkeena ka wadeen mashruucooda doolka iyo dibadka keenka ah ee ka dhanka ah diinta dadka dalka iyo dawladnimada Soomaaliyeed haddaba xilligan oo uu dib u laba kacleeyay halganka aan kala harka lahayn ee uu shidaalkiisu yahay hubka qaranka iyo hiilada shacabka waxaa dhalinyarada u muuqato fursad dahabi ah oo ruux cusub loogu shubi karo dadaalka iyo doonista qaran ee dalka looga sifeynayo cadawga annaga oo mabda'aas ka duulayno waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq ku socdo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada bogaadinta ciidamada qaranka iyo xoogga deegaanka ee Macawisley qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed kuwa maamul goboleedyada iyo xoogga deegaanka ee Macawisley waxaan ku bogaadinaynaa geesinimada iyo ka go'naanshaha ay ku muujiyeen gulufkooda xaq u dirirka ah ay uga soo horjeedaan cadawga khawaarijta in annagu caawa laamiga iftiimayo oo nabad ah dhax taaganahay waa miraha abaalgashiga aanan af iyo eray loogu gudi karin oo ku yimid
nafhurnimada geesiyaashaas iyo adkeysigooda ay gaajada haraadka dhaxanta iyo dhididda furimaha hore ka dhacaysa ugu dulqaadanayaan. ilaahay ayaa abaalkiina gudi kara, annaguna duca iyo isku duubni aan dadaalkiina ku taageerayno ayuu doorkeenu yahay. 2 aan u midowno cadowga inoo midoobay. cadowga khawaarijtu waxay ku midaysan yihiin hal ujeeddo oo ah baabi'inta ummadda Soomaaliyeed. si aan uga adkaano cadowgaas waxaa laga maarmaan ah in annaguna u midowno oo aan cod cudud wadajir ku taageerno dadaalka ka dhanka ah argagixisada ka socda Hirshabeelle, dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee ka socda Hirshabeelle, Puntland, Galmudug iyo gobollada kale ee dalka. yaanan ku kala duwanaanin diidmada iyo la dagaalanka khawaarijta. 3 kaalinta siyaasiga iyo siyaasadda. annaga oo tixgelinayno dabeecadaha ay leedahay dimuqraadiyadda oo ah in dooda kala duwanaan laga qabi karo shaqooyinka dowladeed ee socdo, haddana waxaan hoosta ka xariiqaynaa mudnaanta ay leedahay in dib loo dhigo wixii ku saabsan siyaasadda iyo doodaha siyaasiga. ma jirto halis ka daran argagixisada. in halistaas laga hortagana waxa ay u baahan tahay uur iyo af midaysan oo lagu ayidayo dadaalada socdo. Number 4 waxgaradka iyo hogaamiyaasha bulshada. maadaama uu dagaalka hadda socdo ku tiirsan yahay taageerada shacabka, waxaa lama huraan ah in kaalin wax ku ool ah qaataan dadka loo aqoonsan yahay abaabulidda bulshada sida indheergaradka, aqoonyahanka iyo hogaamiyaasha dhaqanka ee beelaha. yaanan cadowga lagu fiirsan in uu kala furfuro xuduudda midaysan ee bulshada, markaas oo ay hirgeli karto siyaasadooda oo ah kala dil si aad u wada disho. sida uu ilaahay dhul, dhaqan iyo dhiigba isugu xiray bulshada iyo beelaha Soomaaliyeed ayay dantooduna isugu xiran tahay. hogaamiyaasha bulshada waxaa la gudboon in ay xoogooda isugu geeyaan mideeyaan beelaha, maadaama lagu wajahayo cadow u midaysan ciribtirka dadkeena. Number 5 garab istaaga warbaahinta waa furaha guusha. warbaahinta iyo wariyaashuba waa mid ka mid ah dhibanayaashii ugu horeeyay ee ay khawaarijtu dhiigoodu banaysteen. xasuusteena kama aysan go'in walaalihii qiimaha badnaa ee ay ku weynay gacanta cadowga, kuwaas oo sababta keliya ee loo bartilmaamaysanayay ay ahayd in ay iska diideen buunbuuninta ajendayaasha argagixisada ee baabi'inta shacabka. sida ugu mudan ee lagu warin karo dhaxalka taariikheed ee shuhadadii u godgashay sare u qaadista codka saxaafadda xorta ah iyo diidmada caburinta khawaarijta waa in bahda saxaafaddu garab istaag buuxo u muujiyaan dagaalka lagula jiro cadowga. bahda warbaahinta waxaan ku bogaadinaynaa sida ay ugu midaysan yihiin xaqnimada dagaalka ka dhanka ah khawaarijta. waxaan ugu baaqaynaa in ay kaalintooda sii laba jibaaraan oo sii gudbiyaan guulaha ciidamadeena, ka foojignaadaan dabinnada dacaayadaha taagta daran ee argixisada. Number 6 guubaabo guud. gulufka inoo siman, guushana Soomaali baa leh. waxaan guubaabinaynaa dhammaan ciidamada Soomaaliyeed ee gulufyada ka wada gobollada dalka, kuwaas oo gaylamaha dabargoynta cadowga argixisada. si gaar ah waxaan hambalyo ugu direynaa ciidamada Puntland oo guul wax ku ool ah ka soo hooyay col ay ku qaadeen daacishta ku dhuumaalaysanayso buurleyda calmiska. argagixisadu magacii ay doonto ha isugu yeeraan, waa soo galooti afkaar iyo ujeedo shisheeye xambaarsan, xaqna uma lahan in ay ku sugnaadaan dhulka Soomaaliyeed. goob kasta iyo gobol walba oo lagu jebiyana waxa ay ka dhigan tahay guul u soo hoyatay gobonnimada Soomaaliyeed ee darteed ay geesiyaal badan u go'een. balanteenu waa isgarabsi iyo isgurmasho, yoolkeenuna waa guul iyo gobonnimo ummadeed.